waa gabay aniga hees ma wado okay gabay calankan ku hormar hay calanka ku hormar calankayga deeqo ilaa xumaha ka daahiye cadow kuma danqariyo ilaah samaha ku doonye daljirku halgamaayo allow diraca ku waayin daafilaahay ka mari qofkii daayac kula doonaa dariska lamu dhigo ilaahay dib jiira liita daqa ruuxa ku geysanee necab daryeelkaaga duuleedeeba ka mari ilan doqooni waaliide ku siyaadi darajada ilaah dooranaa tahaye weligaa dushaydaa sudhnow difna kuma gaadho dulli kuma haleeliyo qofaan dayin wanaagaaga dawadii naftayda tahaye abid ha duugoobin ما شاء الله muuqaaga goortan dayuu iga hadha dalku marka aan ku daawado ayaan farax dareemaye ilaahay samaan kugu daryeel daayna bidka آمين أوكي مساعتها ولي مسا way socotaa wali micnihii waqtiga ku gaabana u maleynaa mise waan wada karaa ما وقتي igu gaabna wax ma caashaygo saawad ha صح dib jirkii gumaystuhu markuu nolosha noo diiday doonistaadii baa loo daldaalay diracyadeeniye inta geesi awga dunida looga dabargooyey dabuubkuma ekayn karo dadkuba wuu ogsoon yahaye ilaahay samaan kugu daryeel daayna bidkaab ما شاء الله gabayga calanka haddaan halkaas uga soo laabto micnihii wuu iga mutaystay intaa inka badan ما شاء الله inka badan ma la soo koobi karo waliba waxa wanaagsanaa meel calanka suran yahay inaan ku geeyo calankoosan u babanaayo iyo codkaaga aad iyo aad isugu biicnaalaay hadana calanka xataa insha Allah ta'ala waxaan rajayaa calanka xataa inaan isku maqlay sababtoo ah calanka waa kan kaliya na tarjumo adduunka meel walba aan tagno taariibna hal iyo gabal leeka dheh kuwa baxeen xataa waa soo naqooyaan ninkan cawada loo siriyay kuwa baxeen xataa adiga hal iyo laba ka dheh dhanka tahriibka maxaan ku dhahdaa horta waxa igu dhaliyay gabagaas inaan ka sameeyo tahriibka waxa weeyaan waa dhibaatooyin badan oo inta aan maqlay inta aan maxay ahayd arkay micnihii aan halkan lagu soo koobi karin dhibaatooyinka dhamaanteen waan wada ogsoonahay inuu dhib badan leeyahay asleeyay la socdaa hadana maxaa waaye war ma maqlaysiine la leeyahay cawada daba doonta ku qoran cawada marka bal adigana iska waani ninkaas waa waani adigana la hadal طبع وصل اشتيه ما شاء الله walaalkay baa si fiican u faahfaahiyo uga hadlay anigana haddaan gabayga hore u sii galo hooyaalayey hooye allaheedhe hooyaalayey hooy dhan kastaba ka eego dunidu waiska dhalanteede dhakafaar wax keeniyo farxaadii waysu dhowdahaye waxaa huriyey dhiigayga oon dhabuga qiirooday dhallinteeni qiimaha lahaydeen dhur suuganaynay badi dhumucda weynayd markay dubatay dhuuxooda dhurwaayiyo markay qaybsadeen cadow soo dhaartay dhidibkaygii balliicayoo waan dhardaanayaaye hurdadaba miyaan dhinac dhiga dhaawac baan ahay dhalinteenna gebigeed intay xumaha dheehayso inta ay ku dhiiranahayaan dhaqamada liita inta ay tahriib dhowrayaan dhiilanoo qoraane dhanqaryaduna dayn mayso oo dheeli baanahay bal tahriib dhib mooye malaha dheef la raadsadoe dhimashiyo wad mooye malaha dhaxal adduunyaade dhalandhoolka laga wada mutad dhaxa aragteene dhantaalku inoo geystay baan la dhutinaynaaye ninka dheef shisheeyiyo tahriib nololka dhowrayo war madhoohana tahay aqliga dhagax laga saaray ubaxeeni soo dhalaanayuu nibiri dhuuqaaye dhaayuhu kuway tabanayeen dhibir la quudsiiye kuwii aan ku dhaadani lahayn wayaga dhumaaye
kumanbaa xabsiga dhooban oon dhimanin noolayna kumanbaa intay dhaawacmeen dhiigi laga mirtay kumanbaa dhufaan laga dhigo dhaqaana duunseegay kumanbaa dhagxaha lagu rartaa oo la dhaansadaye dhagxumada la yaab kale miyay dhilanagu beerin dhoohanaantayaa anagu unkoo dhacay damiirkeeni war dhulkeenna hooyuu ilaah dhigay macaadiine dhan kastaba barwaaqa dhex taalanan dhammaanayne webiyada isdhaafiyo bad baa noo dhammaystiraane inta nolosha lagu dhaadaban shayna loo dhimiine dhul shisheeyay anagu fardookeena naga dharshay dhoohanaanta yaab kale maxaa noogu xiiray dhaadka war baldheexda qayrkeen halkuu dhigay tallaabooyin waa dhabar jabkeenoo wanaaguu ka dheeryahaaye tahriib ha u dhagtaaginaynu eebbaidin dhowr tahriib ha u dhagtaaginaynu eebbaidin dhowr amiin yaa rabbi dhegtii wax maqli laheed allah idin siiyo kuwa cawada bacyaalkooday wataan waa ayub waa la wada marka maasha allah tahriibka dhibka uu leeyahay waa laga hadlooyaa haddana dhegihii wax maqli lahay horta allah na siiyo aamiin gabadha abwaanada ama wiilka abwaanka ah wuxuu sheegayo waa wax dhibaato ka imaanayo iyo wax faa'iido ka imaanayo wixii dhibaato ka imaanaya haddii nila sheego soomaaliyey iska jooga Donald Trump xasiri ba America ma soo gali kari wir inta soo galo wir inta imaado America maxaa yaala war wadanka haysatiin wallahi billahi wadanka sharaf badan ma jiraan uma leha meeshaan aan ku dhalani meeshaan aan ku weenani meeshaan aan ku korni meeshaan aan magac ku yeelani meeshaan aan sharaf ku yeelani ani wallahi America hadii inta la keeno oo la dhaho America soo bax wallahi ma raacay mana baxay qof walba wadankaaga sharaf ku leedahay nin walbo wadanka wax ku dhaama male wallahi billahi tallahi marka kuwa naga maqan leh alla noo soo aruuriyay laakiin kuwa hadda baxooyaan sida abwaanka aad sheegay kuwaas daruufay u bixeenas dhahay waa isweereeyay markaas maayno hadda laakiin anagoo ififaala nabadeed wax walba noo soo caraftay aan helni aan ogaani macnaha haddana kii baxo hadda maxaan ku xisaabeynaa kii hadda baxo maxaa baaco way wallahi kii hadda baxdana baacay le waayidna walaala le waay lamadood marka ma sha Allah saaxibta waa u qaleeynaya waxaan raacsanayaa maxay ahaday dhalinyaradeena waxaan leeyahay ilaahay dhulkeena dheeftiisa ha tuso amiin ya Allah badan qabna beeran qabna waxa naga dhiman allaha malay an qabno sooy u badan yihiin wallahi malaygan kaligiisa 10 sano wana deeqaadi dadka dhan fiil qaataan marka mar rawaan beeran leenahay fiiriya dhulkaana wax ku riday hal shay ya ku riday ama hal galay ama wax fale rooba imaaha minkaaga jiife